اللهم رب الناس ذي الوزن الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يقدر سقما ولا ألم. أعوذ بالله السميع العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم. سعر الحسد في البيت اللهم افضل سعر الحسد في البيت اللهم افضل سعر الحسد في البيت يا رب العالمين اللهم افضل سعر الحسد يا رب العالمين بقوتك وقدرتك يا جبار السماوات والأرض بقوتك وقدرتك يا جبار السماوات والأرض بقوتك وقدرتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم عليك بالساحرين اللهم عليك بالساحرين والساحرات اللهم عليك بالساحرين والساحرات. حسد 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 سحر الحسد 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 سحر الحسد. muddo 3 cishaa ayaa guriga gudihiisa dab ka kacayay markaa sheekh jaamac wadaad baa ilaahay noo keenay waan u mahadnaqaynaa sheekha ilaahay khayr ha siiyo annagana ilaahay sidaa naga kaxeeyo markaa dee dabkii insha Allah waxaan rajeynaa inuu saa nagaga tago. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. 3 cisho ayuu gurigu kala gubtay maalin 2 guri baa gubtay maalintii u horreysay labadaa guri markaa saacaday kala horreeyeen
maalintii dambe guri baa gubtay oo isaguna shuf beelay maalintii dambana guri baa gubtay saasay u kala gubteen oo gudaha un ka gubanayay ma wax dabi kuma jirin xalliyaal wax daba ku jiray ma jiro markaa dee insha allah waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay sidaa nagaga kaxeeyo ummadda muslimiintaana waxau leeyahay noo soo duceeya in ilaahay dee dhibkaa naga dulqaado insha allah dee sidaasaan rajaynaynaa halkan waxaan uga mahad celinayaa marka hore sheekh jaamac wadaad allah khayr ha siiyo oo socdaal dheer noo soo maray runtii taraag dheer noo soo maray ayaan marka koowaad horta mahadnaqayaa marka labaad mahadnaqayaa marka koowaadna ilaaha raxmaanka mahad iska leh halkan horta ayuu dabku ka bilaabmay maalintii khamiistii gelinkii hore gelinkii dambana maxay ahaatay halkan ku xigtuunbuu ka bilaabmay marka maxay ahaatay waxa laalo xadee gurigaa gubayoo ladh ku xidhan iyo cid gelaysay bay jirin maxay ahaatay dab wax lagu karsada may jirin gurigaasoo aanuba dhoweyn baa la gelayay maxay ahaatay jimcihii gelinkii horena gurigaa kaloo ku xigoon dee kaba fog ayaa isaguna ku xigayoo gubtay sabtidii gelinkii dambe casarkiina markii maxay ahaatay salaada la tegay laga soo baxayna kaa kale ku xigay ayaa maxay ahaatay isaguna ku xigayoo gubtay maqsinkaa kale ku xigay marka gurigaana isaguna iminka 2 bilood iyo adigu xoogay ciidmay gelahayn kaa kuwana way kaba sii horreeyeen oo ciidmay gelahayn baryahaaba marka waa sidaa insha allah waxaan rajaynaynaa muslimiintu meel kasta joogaan noo soo duceeyaan inuu ilaahay sidaa nagaga dhammaystiro oo naan maxay ahaatay dib dabkaasi aan maxay ahaatay nooga soo duceeyaan insha allah biidnillaah marka hore waxaanu nahay faamiliga uu ka gubtay gurigani reerka uu ka gubtay baanu nahay waxaan meesha aanu ku aragnay wax mucjiso leh mucjisadaasoo ah dab meel aan dab oolin oo dab ka kacayo oo kolba meel ka bilaabmaya 3 cisho ka bilaabmaya ayaanu aragnay fajac baa nagu dhacay weligay maanaan arag wax saa u gubtaa maanaan arag ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay saa nagaga kaxeeyo sheekhana waanu u ducaynaynaa in ilaahay annagana nooga aqbalo qur-aanka uu meesha noogu akhriyay uu nagaga kaxeeyo ayaanu ilaahay ka baryaynaa marka xiga waxaanu ka baryaynaa dadka ummadda muslimka ah inay noo soo duceeyaan oo ilaahay noo baryaan in ilaahay saa nagaga kaxeeyo muslimiintana ilaahay inaanu ku keenin waxan oo kale ayaanu ilaahay ka baryaynaa annagana ilaahay saa nagaga kaxeeyo الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله ساكا وحن شوقنا مقالة هرقيسة كدب مركي أي نوتي مقايلة دان وحوي يقوري قواني مدو وحوي سدح عشاء هالكاسو وحوي هانتي بداني أي وحوي كوبا باضي runtii qoyskani markii ay la soo xidhiidheen waxa weeye ay iga codsadeen inaan waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa iyo kalaamkiisa inaan waxa weeye ugu kaalmeeyo insha allah wax alla wixii aan hayay waxa weeye dhulkaan dhigay waana saacaddii ay la soo hadleen ayaan waxa weeye safar insha allah soo bilaabay oo waxa weeye maaragtay aan soo dhaqaaqay ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibkaa haysta iyo guryaha iska gubanaya ee wax maaragtay sababaya markaa aan la arkaynin oo wax daba iyo maaragtay guryaha qaarkood aan wax daba cid ka shidanayn leedna aanu ku jirin in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye uu ka raro oo ilaahay ka qaado runtii dhowr guri oo hore ayaa waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala nala qabtay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa waxa weeye ku damiyey markaan kalaamkiisa ku akhrinay ee qur-aankiisa waxa weeye maaragtay aan ku akhrinay ummadda muslimiinta ana insha allah waxaan leenahay qur-aanku waa shay dawo ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameeyey oo ilaahay weyneeyey qofkii waxa weeye insha allahu niyeysta in ilaahay dhib kasta waxa weeye uu kaga qaadi karo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhib yar iyo dhib weynba xaggiisa ayaa waxa weeye loola cararaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay fafiruu ila allah marka dhibaatooyinku idinku dhacaan xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala u orda oo ilaahay subxaanahu wa tacaala miciinsada marka insha allah bulshada iyo ummadda muslimiinta ah dhammaan waxaan insha allah ugu baaqayaa aniyo qoyskaaba insha allah inay noo soo duceeyaan cid kasta oo waxa weeye ka cabanaysa xanuunada waxa weeye shayaadiintu ay keenaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidamkii waxa weeye way u furantay waxa weeye xaruntaydu iyo waxa weeye inaan u adeego iyo meel kastay joogaanba insha allah inaan uga howlgalo oo waxa weeye ilaahay ciidamkii aan u fududeeyo
oo insha allah u soo ducayno kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala aan ku soo akhrino runtii xaruntu diyaar bay waxa weeye idinla tahay muddooyinka insha allah ugu dambeeyana xaruntu hargeysa iyo burco labadaas insha allah ka dhaxayn doontaa haddii ilaahay ka dhigo lambarka xarunta laga heli karo ee waxa weeye lagala soo xidhiiri karaa waa 4312591 weeyaan 4312591 bulshada insha allah muslimiintaana waxaan leeyahay war ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa u noqda oo ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa isku daweeya man lam yashfihi alqur'aanu falaa shafaahu allah waman lam yakfihi alqur'aanu falaa kafaahu allah waxa weeyaan qur'aanku waa dawo dhammaystiran oo waxa weeye xaqiiqiya qofkii yaqiinsada ee aamina ilaahay subxaana wa tacaala waa ku daweynaya dhib kastoo ka haystana ilaahay waa kaga qaadaya mid yar iyo mid weynba ilaahay waa kaga qaadaya ummadda muslimiintana waxaan leeyahay waxa weeye amraadiinna iyo xanuunadiinna iyo dhibaatooyinka waxa weeye idinku dhaca ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa iyo kitaabkiisa waxa weeye ula noqda ilaahayna subxaana wa tacaala xaqiiqo wuxuu ku yahay inuu idinkaga furfuro wa aakhiru dacwaana alxamdulillahi rabbil caalamiin wa sala allahu wasallam calaa nabiyina maxamed